Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janaalka Tito Xalana Care oo uga barataan mar walba inaad kala socotaan daawooyinka. Maanta waxaan bilaabaynaa cutubkii labaad ee daawooyinka. Daawooyinka waa ilaha daawada laga helo source of drug. Ilaha daawada laga helo waa 4 marxaladood. Marxaladda koowaad waxaa weeye plant of source oo ah daawada geedaha laga soo saaro. Animal of source. Number 2 animal of source oo ah daawada xoolaha laga soo saaro. Number 3 mineral of source daawooyinka macdanta laga soo saaro. Number 4 oo ah synthetic source daawooyinka kiimikada ah. Haddii aan ka bilowno plant of source oo ah dhirta waxyaabaha ugu horeeyay ee laga sameeyay daawooyinka waaye, waana midka ugu badan ilaa hadda daawada laga isticmaalo. Plant of source daawooyinkan waxaa loo sameeyaa qaybo kala duwan oo kala ah sida geedaha, leaves caleemaha, flowers ubaxyada, fruits miraha, seeds iniinta, roots xididka, bark jilifta, stem jirida. Waxaan ku horumareynaa leaves oo ah caleenta. Inta badan waxaa laga soo saaraa daawooyinka loo isticmaalo qufaca iyo xabadka feeraha. Component of cough syrup sidoo kale waxaa laga sameeyaa daawooyin fara badan. Number 2 flowers oo ah ubaxa. Inta badan ubaxa waxaa laga sameeyaa daawooyin looga hortago xanuunada medication opioid sida daawada morphine oo ah kuwo kale oo xanuun baabi'iyaal ah. Fruits miraha waxaa inta badan laga helaa daawooyinka loo isticmaalo caloosha ama fungi-ga. Number 4 seed iniinta. Inta badan waxaa laga soo saaraa daawooyinka loo isticmaalo neerfayaasha. Number 5 roots xididka. Inta badan waxaa laga sameeyaa daawooyinka loo isticmaalo matag joojinta iyo wixii la mid ah. Number 6 stem jirida geedka. Inta badan waxaa laga sameeyaa daawooyinka lagu dajiyo xanuunada murqaha muscles and daawooyinka suuxinta anesthesia. Sidoo kale animal source waa daawooyinka laga helo xayawaanka. Animal source waana mid ka mid ah midka ugu badan ee laga helo daawooyinka. Aqoon-yahanada iyo saynisyahanada waxay xayawaanada kala duwan kala soo saaraan daawooyin fara badan kuwaas oo waxtar u leh nolosha aadanaha. Daawooyinka laga soo saaro xayawaanaadka waxaa sabab u noqotay in lagu badbaadiyo malaayiin naf oo u dhiman lahaa cudurro fudud iyo kuwo culus. Igaraala noqda. Daawooyinka xoolaha laga soo saaro waxaa ka mid ah saca pancreaska. Cow pancreas waa isha laga helo daawada insulinta, waxaana laga soo saaraa cudurka macaanka loo soo saaraa. Number 2 kaadida naagta uurka leh. Waxaa laga helaa maado loo yaqaan human chorionic gonadotropin oo lagu daaweeyo modalisnimada infertility. Number 2 qanjirka isha sheep of thyroid. Waxaa laga helaa maadada thyroxine oo lagu daaweeyo dhiigkarka hypertension. Beerka saca liver cow oo ah isha laga helo vitamin A iyo vitamin D. Dhiigga xayawaanka blood animals waxaa laga diyaariyaa tallaalada sida preparation of vaccination. Waxaa kaloo jira daawooyin qalajiyaal oo loo soo saaro noolaha gaar ahaan fungi-ska iyo bakteeriyada. Waxaana lagu dagaalamaa daawooyinka cudurrada fungi-ga iyo bakteeriyada. Caloosha xoolaha stomach tissue waxaa laga helaa waxyaabo loo yaqaan pepsin and tryptophan taasoo loo isticmaalo daawada bog calooleedka oo loo yaqaan peptic ulcer. Number 4 mineral source daawada macdanta laga soo saaro. Waxaa laga soo saaraa daawooyin fara badan oo waxtar caafimaad u leh. Sida aan ogsoonahay jirka aadanaha waxaa ku jira macdan kuwaas oo muhiim u ah qabata shaqooyin waaweyn sida jirka garaaca wadnaha, xoojinta lafaha. Daawada waxaa loo sameeyaa macdanta 2 nooc oo kala ah metabolic oo ah mid bir ah, metallic oo ah mid bir ah, iyo metallic oo ah mid aan bir ahayn. Daawooyinka ugu caansan macdanta laga helo oo laga sameeyo waxaa ka mid ah iron. Number 1 iron waxaa lagu sameeyaa dhiig yarida anemia. Zinc sulfide waxaa lagu daaweeyaa cudurro badan
sida shubanka, caanaha, cambaarta iyo xayawaanada iyo dhaawacyada. Iodine waxaa loo isticmaalaa in lagu dilo jeermiska daawada. Sidoo kale qofka ku yaraado iodine-ka waxaa la siiyaa in qiyaas ahaan. Mercurial salt waxaa lagu daaweeyaa isfiilitada sida syphilis. Sodium bicarbonate hydroxide waxaa lagu daaweeyaa gaaska. Synthetic source number 4. Synthetic source waxaa la sameeyaa waxyaabo dabiici ah iyadoo loo adeegsanayo shaybaar. Waayadan inta ugu badan daawada waxaa kuwa aadanuhu u sameeyaan mid shaybaar casri ah oo ku dhisan. Synthetic waa marka daawada gebi ahaan lagu sameeyo isbedel sida buda daawada, qaab dhismeedka kiimikada iyo daawada. Semi synthetic drug waa markii aan daawada isbedel lagu sameyneyn dhanka nucleus-ka ama chemical structure-ka. waxa kaliya lagu sameeyaa naashnaas. Fadlan cashirkeena meeshaas noogu dhamaaday. waxaa noo saartaan share, subscribe, like and comment. cashirkeena meesha kasii socon doonaa. qaybtii koowaad meeshaan noo ka ekaatay. waa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa mahadsantihiin.